bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dadkeen meel walba joogtiin waa idin salaamaya qof walba caafimaada horjeenaya caafimaad waar ilaahay hana siiyo waxaa raba maanta inaan sheego waxay tahay xanuunada nafsiga psychological problemska ma ahan wax ceeb ah ama wax qofka dacaayad hadhow ku noqonayso wax jira waaye wax in laga hadlo u baahan waaye wayna kala nooc duwan yihiin oo yani maanta koow laba saddex wax la dhihi karo maaha waxyaabo badan horaa uga soo hadlay kuwo kaloo badanna way noo dhiman yihiin insha allah laakiin waxaa rabaa inaan sheego mar walbana aan inta waxa ka sheegaya waxay tahay waxyaabaha aan la kulmo oo isdhaho mujtamaca carqaladay ku yihiin u gudbi la wadaag dadkaaga si ay wax un ay kaala bedelaan sababtoo aniga keligay wax ma bedeli karin marka waxaa rabaa waxay tahay inaan soo gudbiyo maanta yani xanuunada nafsiga noocyadiisa kala duwan ama inta oo la eg yahay cunug yar qof weyn qof dhaxaad nin naag kulli wax oo noolaha ilaahay bini'aadamka oo abuurtay ku wada dhici kara waaye qofna ma u qaas ahan noocna ma u qaas ahan marka yaa la dafirin hala aqbalo yani qofkii haysto xanuun nafsi hadduu aqbalo already tilaabo qaaday oo wuxuu ka gudbay يعني wuxuu u gudbay hal tilaabo caafimaadkiisa wixii markaa aqbashid ka bacdi aad daawo iyo la tacaalid raadsanaysaa laakiin haddaadan aqbalsaneen problem ay leedahay yani dabeecadaha qaldan psychological problem ay noqdaan xanaaqyada badan psychological problem waaye ilowshaha psychological problem waaye kalsooni yarada psychological problem waaye yani wax walba yani wax kastoo naqsi ah ama kaa hor istaagaya mujtamaca saa ula dhaqmi lahayd oo u aragtid inay xayndaab kugu yihiin ama adiga noloshaada kala caadiga ee saa u wadan lahayd waxay noqonayaan wax barbaleen ah oo nafsiyan oo rabo in lagaala tacaalo yani qasab ma maanta in kaniini lagu siiyo qasab ma ahan in cirbad lagugu diro laakiin muhiimaddu waxay tahay in dhibkaagii aad ka hadashid waxaana saan isaan u dareemayaa kabacdi waxa aniga ah qabto waxay tahay ama psychologist oo qabanaya waxay tahay dariiq waxa isla raadinaysiin qofkaas oo ku najixi karo oo uga bixi karo problemkaas haysto marka wax ceeb ah oo la qarsadana maaha wax qofkii qaba lagu dacaayadeynayna maaha laakiin wax un u baahan waaye in tababar aan nafsada siisid maanta tababar oo maanta hadii la dhaho dumarka jecelahay dhanka dumarka daa ka hadlo hadii cilaan saar la dhaho meel cilaan saara xagga la isku barayaa skill cusub waa lagu barayaa dhartulo waa la isbarayaa waa la yeeli lahaa soo maaha yani iyadana waxay la mid tahay in xirfad cusub ama skill cusub oo lagu baraayo in nolosha wax cusub aad ka baratid ama dabeecad cusub ama dhaqan cusub ama xanuun ku haaye aad ka tagtid midaas kalena waxaa sii raacinayaa markastoo nafsi markii laga hadlo diinteena markastoo way la socotaa yani idminaanka iyo deganaanta inta badan waxaa laga helaa horta digri waaye alxamdulilah ilaahayna abuurtaa mahad iskaloo islaam naga dhigay marka anagoo diinteenana ilaahay uga mahadinayno sababtoo anaga ma doorno inaan islaam noqono ilaaha mahad kule oo islaam naga dhigay iyadoo la fiirinayo iimaanka iyo diinta iyo istiqfaarta iyo qur-aanka iyo wax kastoo diinteena ku saabsan haddana dhinacan kale bal oo nolosha cilmi ahaan wixii markaas adiga kaa qaldan aa is leedahay haysanin qalad ma ahan nal ila soo wadaag kadoo ilaahay yiraahdo qof qaba hadaa aragtidna adigana ha ku cambaareenin waxaan rajeynayaa inaa wax un iga fahanteen waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu